maayirka magaalada Caynabo Faysal Axmed Jaamac xubnaha golaha deegaanka ee degmada Caynabo ay wehelinayaan qaar ka mid ah uqaasha gobolka Saraar oo saaka shir jiraad ku qabtay gudaha magaalada Caynabo ayaa daadafeeyay isla markaasina waxa ka mid jiraan ku tilmaamay hadal dhawaan ka soo yeeray xubno iyagu isku sheegay inay yihiin uqaasha gobolka Saraar isla markaas shir jiraad ku qabtay gudaha magaalada Burco kuwaasi oo sheegay inay ka soo horjeedaan hay'adda shidaalka ka baaraysa deegaanada Saraar mas'uuliyiintan oo saaka shir jiraad qabtay ayaa sheegay in hadalladaasi waxba ka mid jiraan yihiin isla markaasina baadhista shidaalka daba fadhiisanayaan hay'adda iyo xukuumadda Soomaaliland isla markaasina ay ku garab taagan xukuumadda Soomaaliland horumar kasta oo ay keento guud ahaan Soomaaliland iyo gaar ahaan gobolka Saraar xubnahani waxa ka mid ah hadaladoodii indhoweyd macnaha waxa laga hadlayay khayraadka laga soo saarayo gobolka Saraar waxaan soo dhaweynaynaa shirkadda shidaalka soo saaraysa ee ka soo saaraysa gobolka Saraar dadka degan gobolka Saraar ka gole ahaan yaan qofna oo dhan khayraad lagama soo saari karo wax kasta oo macnaha dalka uu ku dhisan yahay qodob baa qeexay ha akhristaan shuruucda dalka baan waxaanu leenahay khayraadkii shidaalka ee ka dhacay gobolkan laga helay Saraar suucan baanu soo dhaweynaynaa suucan baanu la shaqeynaynaa maanan ogolin oday dambe oo ka hadla saxaafadda oo wax iska dhigaaha odayaasha jooga burcada ka buuqaya gobolka Saraar hawl baa ka dhacday shil baa ka dhacday hawshoodii way seegeen ma ay qabanin hawlo kale iskaga jiraan hawooyin kale shaqadoodina waa baasatooyin bawoogi waxaan u sheegayaa kuwa jareeyada jooga lacagta u soo diraya ee gobolka Saraar u dhashay ee marba lixda ku soo diraya lacagta waalihiin oo aad ogtihiin Saraar inta ku xidhana waalan inta gaajada wali ka waantoobeen hadalkaasi hadal macquul maaha wadanka waa la soo saaraya ummaddu horumar bay rabtaa wax dhibaato oo dalka iyo dadka uu keenaya ma jiro bismillahir rahmaanir rahiim shirka raayidkeena wuxuu ku saabsan yahay dadkii khayraadka dabiiciga ah ee ilaahay keenay ee xukuumaddu ku soo tacabtay ee ay dhibta badan u martay hortaagan ee metelaya ee magaceeda iyo gobolkeega iyagoo madaxa ku sita doonayay inay soo taagaan shidaalka annagu xukuumadana ku garab taaganay waxay soo heshay Amal Cilmi Xasan Shiine Home Cable TV